taliyaha booliska Soomaaliya General Cabdixakiin Daahir Saciid oo wareysi gaar ah siiyay idaacadda VOA ayaa sheegay in hay'adaha amnigu ay bilaabeen howlgalka xaqiijinta amniga ee dhawaan ay ku dhawaaqdo xukuumadda Ra'iisul Wasaare Khayre. runtii dawladdu waxay ka soo saartay mowqif cad iyo go'aano lagu sooyeeyo tallaabooyin isku xiga oo sharciga waafaqsan sugidda amniga badbaadinta nafta iyo hantida shacabka Soomaaliyeed iyo dhammaan adduunka wixii dhibaato u geysanaya oo ah kuwan dhagarqabayaasha ah howlgallada si fiican bay u socdaan waxa aad isaga kaashaday dhammaan ciidamada amniga oo dhan waxayna runtii u istaageen inay meel walba ugu galaan cid walba oo ka shaqeynaysa hawl amni darro taliyaha ayaa weydiiyay waxa ay ka yeelayaan askarta dawladda ee qaybta ka amni darrada ka dhacda Muqdisho sida dilkii loo geystay wasiir Siraaj Cabbaas waxa weyn laga qabtay dawladdu waxay qaaday tallaabo sharciya nasiib wanaag falalkii dhacay oo dhan maalmihii ugu dambeeyay cid walba geysatay waa la soo qabtay wasiirka ninkii dilay waa la soo qabtay sharciguna hortagaya keeskiisana waa la dhameystiray maxkamadda ayuu hor yaallaa taas waa lagu guuleystay waqti dheer iyo baaris dheer oo la sameeyay waxaan rajaynaynaa in sharciga wixii uu ka mutaysto uu mudan doono sidoo kale waxaa la soo qaaday tallaabooyin sharciga waafaqsan oo lagu xakameynayo arrimaha hubka waxaa taas dhinac socota dib u habeyn lagu sameynayo ciidanka laftigiisa amniga ilaaliya mas-uuliyiinta waxaana insha allah golaha wasiiradu sida la socoteenba lagu go'aamiyey ciidan gaara oo loo tababaray oo ah ilaalada gaarka ee mas-uuliyiinta qaranka iyo goobaha muhiimka ah kuwaasaana noqonaya kuwa howlaha ugu badan ka fuliya magaalada caasimadda ah iyo meelaha kale looga baahdo sidoo kale waxaa aad u sii yaraanaya dunuubtii ay geysanayeen ciidamada oo laftigeeda dib habeen lagu sameeyey ciidamada dhammaantood waxaa dib loogu ceshay in tababar iyo wacyigelin iyo la xisaabtan dhaba lagu sameeyo khubarada amniga ayaa sheegaya in Muqdisho ay joogaan askar u badan kuwa militariga loona baahan yahay in laga saaro haddaba wuxuu yahay qorshaha amni ee laga damacsan yahay askartaasi waa ciidan lagu og yahay oo amnigii loogu talagalay oo la socda mas-uuliyiin saan kuu sheegayba ayaga dib habeen baa lagu sameynayaa waxaana la sameyn doonaa unit gaar ah baabuurtooda wata dharkooda wata ciidankooda wata aan habqan ahayn taasi tababarna dib loo gasho taasi marka waxay xakameynaysaa hubkan xoogaas dhinacayaha ah oo meesha ka jiray waxaana ay controleysaa kuwa sharci darrada hubka ku wata ciidamada kale waxaa ciidamada kale kulligood dib loogu habeeyey in ay ciidan walba oo ciidankiisa la xisaabtamo howlgallada banaanka howlgalkan ay ku dhawaaqdo xukuumadda Ra'iisul Wasaare Khayre intee buu xiriir la leeyahay maamulada ka jira Soomaaliya waxaa su'aashaasi weydiiyay taliye Saacid gobolada xiriir fiican ayuu ka socdaa uga socdaa waxayna leeyihiin xiriir aad u wanaagsan dhacdooyin sharmaan darada dhacay waxaa ka mid ah Baydhabo ayaa waxay la hadashay Puntland booliiskeedu waxay gaarsiisay niman dhagarqabayaala oo halkaas ka rabay inay fal ka fuliyaan isla markiina Puntland waxay ku guuleysatay inay qabtaan nimankii intaysan falki fulin taasi marka waxay ku tusaysaa wada shaqaynta gobolada iyo maamulada iyo shacabku hadduu saa joogto u noqdo in dhagarqabayaashu aysan helaynin fursado ay ku dhibaateeyaan ama ku waxyeelayaan shacabka iyo ummadda iyo meelaha muhiimka ah hay'adaha amniga Soomaaliya ayaa sheegay inuu bilowday howlgalka xaqiijinta amniga Muqdisho taliska booliska Soomaaliyeed ayaa u sheegay VOA in hadda ay socdaan howlgallo gaar ah oo lagu xaqiijinayo ammaanka Muqdisho Cabduqaadir Okay VOA Muqdisho